عاد باسي هرجيسان وقصوا بحي أنا وجد جيا ما يهين ما لك على وشي سعودة أما دي مستافر يسا أما مغنانية صح اللي جيا وحشوك عشري دي محكمة دي قبلك وقوله قرصورك وكو هذي أنا قرصورك ورقدن سوق قرين داود المهلين ولو قرصورك قف هذي ورقد صوت شرع كلابات داود حنا شاركي لا تريها في يدك كي قوله وكيله أو كنت أعرف على أودي مسؤول مقعابي باني مسؤول مقعابي باني بقولها وكان حلي باني دي حتاجية تصدق هذا حقيقة هذه عينك بولشك ويقولوا حكومة ما كان صدق حريق قلبا ويبدأ معين أنا أود دولديت أي الله يقول حلي أنتم نجى كل كيس وقف شيء قول مو جينين إيمانا جين كرو وهاجاك داوديال سودوادا كسودوادا تلفزيون كسهل كيبل تي في وحا قرب كي فديا أبوان سعيد محمود جهير وكمدا أبوانينta Soomaaliyeed waxa uu dhawaan ka soo baxsaday xabsi ku yaala magaalada Hargeysa kadib markuu cadaalad darro u tabanayo halkaasi muddo 35 casho ugu jiray abwaanka waxaanu ku kulannay magaalada Garowe ee Puntland caasimadda waa abwaan ugu horeyn soo dhawow aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qiimaha iyo quruxda badan aad baad mahadsantihiin guud ahaan dadweynaha reer Puntland iyo gaar ahaan suxufiyiintii waan dhawahay si guud xabsigaagii soo baxsashadaadii iyo qaabkii lagu xiray naga warbixi waxa magaalada Hargeysa lagu xiray 5 March 2022 waxaana dacwadiga gudbiyay nin ku magacaabo la taliyaha afka iyo dhaqanka ee golaha wakiilada oo la yiraahdo Maxamed Xabdel maan jeclayn inaan kiis weli maxkamad ku jira faaleeyo laakiin isaga ayaa habeen hore la hadlay TV la yiraahdo Horyaal oo magaalada Hargeysa xaruntiisu tahay guud ahaana xabsiga iyo xadhigu waxay ka mid yihiin shaambadaha xun ee ku dhacay Soomaaliland dunidii bay caan kaga noqotay maanta intaas oo suxufi ba xiran xadhigeyguna ku sharci darrada uu ka mid ahaa waxa isu kaashaday ama waaran iska soo jartay sidii ay tukaan tahay maxkamadda gobolka Maroodijeex ninkan wuxuu huwaday shaarkii iyo awoodii golaha wakiilada oo markaa uu saldhigga dacweynayay maxkamadda wuxuu xidhnay ID-kaadkii golaha wakiilada waxyaabaha uu xilay waxa ka mid ahaa ama uu habeen hore lahaa in qalinkaygu uu ugu hafreen qalinkaygu uu dadka dulmiyo laakiin waxaan leeyahay qalinkaygu qof kasta wuxuu siiyay xaqiisa iyo kaalintiisa waxaan qoray buug fara badan oo manhaj ka mid yihiin oo samatalis iyo quraanka iyo sayniska iyo miisaanka maansada iyo ka mid yihiin waxaan leeyahay isagu wuxuu qalinkayga ka helaya waxa uu mudan yahay ninkaasi dacwadu igu gudbiyay ayaan xidhnaa 35 cisho markii dhinacna ay u dhaqaaq weyday ila meeraysa ay noqotayna aniga soo cishaday xorriyadii aan xaqa u lahaa waan ku qanci waayay inaan sii xidhnaado sababta lagu xiray bal naga warbixi maxaan oran karnaa sababtaas way tahay sababtaasi waxa weeye Maxamed Xabdel waxaan qof aan isbaranay 2002 markaas oo dugsiga sare aanu foomonahayn ardayda aqoon ahaan loogu hooseysa ayuu ka mid ahaa waliba imtixaankii ugu dambeeyay markii aan galeynay uu dhacay isagu uu dhacay 10kii maadada ee la galayay lix ka mid uu keenay afarnadi Maxamed isagoo saas ayaa sanadkii dambe wuxuu la galay iskuul kale uu baasay wuxuu doonay isla sanadkiiba inuu jaamacad wax ka dhigo dadnin isagoo dhacay uu dibcay inuu jaamacad wax ka dhigo dad arday aan iskuulada hayn oo sanad dib u dhacay jaamacad ay Maxamed iskuulad baan hayn waanu naga dhacay jaamacadna muu gelinayay buu hee wax noogu dhigi karaa marna jaamacadda Hargeysa ayaa la qoray hadana maamul cusub ay ma keen shahaadadii baa leeyahay markuu keen waayay waa leeyahay qof dugsi hoose ah mid dugsi sare wax u dhigi karaa waxuma dhigi karo imika waxaan garan lahayn shahaadada wax kaga dhigo jaamacaddan la yiraahdo Badar oo uu macallin ka yahay marka waxaan dhaliilay heerka aqooneed ee la taliyaha afka iyo dhaqanka ee golaha wakiilada oo aan yiri uma qalmo waxa la igu xulina taas ay ka kacaysay ama ka bilaamaysa abwan gahayr anagu cadayno ma hayno ninkaas in aqoonta siyarta waxa gaaga aqoonni caawa suuleedin ninkaas bedel la taliyaha afka iyo dhaqanka golaha wakiilada Somaliland aqoon noocay ah baad soo yeedeen hadda waxa ku eedeysay inuu xargaaga ka dambeeyay inuu hari habeen uu ka shaqeynayo sidii adiga xabsi lagu geyn lahaa baad adiguna hadda noo sheegtay aqoon noocay baad ninkaas suuleedin Maxamed Xabdel waxaan aqoon shakhsi ah isu leenahay muddo 20 sano waxaan isbaranay February 2002 oo laga joogo 20 sano iyo 2 bilood dugsi sare gacan libax la yiraahdo ayaan anigu
dhigan jiray waxa la soo bedelay maxamed cali iyagu ay dhigan jireen fasalka 1E baan la wada qoray formankii form 2 ku fasal baan ahayn form 3 iyo form 4 kiina kala fasal baan iskuul kala baan de waxaan hayay natiijadii imtixaanadayada inuu dhacayna de waxa markaa dadkii markaas nala dhiganay dokumentiyada wasaaradda waxbarashada iyo meel kaste way yaalaan marka waa nin aan garanayo 20 sano ee ma ha qof aan shalay arkay ama maalin arkay xukuumadda Soomaaliland hadda 15 wariye ayaa xabsi ugu jira taasna waxay ka marakacaysaa xorriyadda hadalka oo Soomaaliland moodaynaya aad u yartahay bal halkaas maxaa kaaga baxay horena waan u sheegay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu damaanad qaadayaa qodobkiisa 13aad in muwaadiniintu ay aragtidooda ku bandhigi karaan qoraal iyo suugaan iyo hadal dastuurku wuxuu madax banaani siinayaa saxaafadda iyo dhammaan muwaadiniinta marka marar badan waxa dhacda in dad la iska xiro sharci darro hadhowna la iska soo daayo anigu waa markii tobnaad bay ku leeyahay malaynta la xiro wax xukun maxkamadeed igu dhacay waxaan idin garanayo 3 bilood baan xiriir qaar iska xidhnaa maxkamadda heshiidiisa ambiil baa la iga qaatay marka xaligu wuxuu ka mid yahay shaambadaha xunxun ee ku yaala Soomaaliland waxaan xukuumadda ugu baaqayaa in siyaabo kale iyo wadahadal iyo waan wax loo maro marka kala timaado laakiin xalig aan loo marin way dadkii uu si kala fogeynaya waxa la ruuxo soo kordhinaya ma jirto ma moodaa xukuumadda Muuse Biixi haatan joogta inay ka xarag badnaytii hore ee Soomaaliya wallahi meel lagu wariyo ma jirto anigu labada xukuumadoodba waa la xilay waliba tii hore ayaabo badnay waa isla kulmiyo una waxaanu si kala qaadnaa ma jirto oo sidaanu Muuse u duubayn ba qoladii hore ay duubi jirtay meel aan ku si kala qaadaba aad ma garanayo laba xukuumadood xilka kala dhaxlay xaligana malaaway kala dhaxleen badal la taliyaha afka dhaqanka ee golaha wakiilada Soomaaliland goorma ayuu bilowday khilaafkeena ina dhowr jeer wax ku celisay ilaan maxamed bedel markaan isku fasalka ahay wuxuu ahaa suugaanyahan 3 sano maansiisa waan dhageysan jiray waan ixtiraami jiray 2005 uu maanso duruufi calankayga la yiraahdo aan tiriyo reergiisa laga sii daayo dhageystay marka wuxuu bilaabay dadkan xinka iyo xumaanta iyo ka shaqeeyay hanaasaha wuxuu bilaabay inuu yiraahdo idaacadda laguma degdego ma tiidku xaaji cali karin ka sheegay khayryada adiga adeerka jeceelo maayir muxuu ku siiyaa Soomaaliland cashuur loo xutiriyo waa halkaas maxaa la siiyaa dee aniga mabdaay uma hayn xilli xoolo laakiin waxaan aaminsanahay baan maansada u tiirnay waanan hee ku kalsoon qof kasta hal abuur oo maqlana waa saasoo kale ayuun buuxmiya haddii aan hal abuur shacbahay maanta wax ka sheegi lahaa xaasidnimo qaadan lahaa waxa laga yaabaa in Cabdiwaahid Cali Gamadi ama Abaan Xasan Daahir Ismaaciil Warsamiya ama Cabdilaahi Xasan Ganiyo wax ka sheegi lahaa laakiin iyagu hal abuuradeedii korkay saaran yihiin mana aha dad sida baqashu ma dhasho wax dhalana ma jecla waa dad la fahmi karo marka khilaafka iyagu wuxuu ka bilaabmay maxamed markii uu arkay inaan hal abuur ahay ayuu taakulay caqabado badan oo soo taxnaa ilaa 2013 markaasaan iska deexday inaan telefoonkiisa garaaco ama xiriir la yeesho waxaan ka bilaabmay in waxyaabaha isugu gulubta leeyahay iyo astaamaha aan ku sheegay ma jirtaa dacwo iyo ergo u tagtay si loo xalliyo waxa uu ka tabanay laba ergo labada waxaan jecelahay inaan sheego maxamed 2018 isagoo nin weyn mas'uul wax dhaleelaya ayaan ku wada aqoon ahaan uma qalin jaamacadda inaad wax ka dhigtid hadii lagu weeriyayna sax buu ku ahaa wuxuu soo diray laba nin walaalanahay ay ka mid yihiin oo khadar iyo cabdishuur leeyahay guriga igu yimaadeen waxay weeraan waxa gafka ah ama ninkaas qoonsaday ergaan he ka qaad waan ka qaado Facebook-gayga kuma jirto wixii mar labaadka 10 February 2022 ayuu xilli duhur yimaadeen laba nin walaalanahay maxamed baan la socday bay yiraahdeen waa wuxuu ka tirsan inay saamaxdaan baan doonaa waxaan ku walaalayaal mil korkii lama dhayo idinku xiriyaashaydii baa tihiin oo qala hadan leeyahay saari kartaan maxamed ma saari kartaan waxaan ka codsanayaa maxamed inuu xirihiisii wato maxamed ugu diiday inuu xirihiisii soo haysto halkiina wuxuu ka tagay maxkamadda maxamed habeenkiisii dhaway hadalkiisa wax ku jirtay ergadiid waa la diid waxaanu dafray gabi ahaanba inuu ergooyin diiday laga bilaabo markii la xidhay ilaa 35 ka cishan xidhan maxamed axmed bedel waxa uu tagay on maragu qabsanaya balagada maraga ilaahay baa leh waxaan maragu qabsanaya oo aan leeyahay war maraga igu fura haddii aan qaldanahay haddii kalena fura runta 10 qof oo weyn mas'uuliyiin baa u tagay waxa ka mid ahaa xildhibaan barkad jaamac batuun oo golaha wakiilada ah
xildhibaan mukhtaar diir qaraalo golaha guurtida ah maxamed cismaan siciid agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha garaad mustafa maxamed cumar abwaan baashe xasan maxamed xildhibaan siciid cabdisamed culey oo golaha deegaanka hargeysa ah mawlid muuse dacar oo gudoomiye ku-xigeenka wadaniga maroodi jeex ah abwaan sadiiq maxamed burmad oo halabuur ah sidoo kalena suxufiga hargeysa uga warramay bbcda gariiqaan cabdinajax axmed iyo siyaasi cabdishakuur maxamed ismaaciil bidhaan dad tobankaasi ka mid yihiin baa u tegey oo ku yidhi siciid sii daayo arrinkii inaanu dhammayno intaba wuu diidey waxay ka soo laabteen iyagoo ninkuu ooyaya un afgaranmayno oo maxkamad baan ku adkaysanayaa waxayna ku tilmaameen qof tiiranyaysan oo wax traumatizing marka haddii iga eedeeyay inaan ergadid ahay labaa jeer buu ergadii soo dirtay labadii midna ma diidin isaguna inuu ergadid yahay tobankaa qof ayaan mara ku qabsaday raggaasi way fursadda way ku waayeen inay ku qanciyaan in lagu sii daayo sooma wuu ku gacan sayday gebi ahaanba qaarkood baa 4 saacadood ama 5 saacadood la joogay gebi ahaan wuu diiday waxaanu malaa dee jannadii u arkayay inaanu xidhnaado markaan arkay siduu ugu dhagan yahay xadhigga iyo siduu ergada u diidina dee xorriyaddii xaq aanu lahaa waa ningan la soo noqdayba bal waa cidduu dacweeyey eedahii mihii maxkamaddu kuu jeedisay hal iyo labo xafiiska xeer ilaalinta gobolka maroodi jeex oo dacwadaha ku ooga eedeysanayaashu 3 qodob bii soo jeediyey wata koobaad waxay dhahdeen waxaad tidhi maxamed xamdil wuxuu ku daray gobol faquuqay beelaha gaway manhajka maxamed wuxuu ka mid ahaa qorayaashii manhajka dugsiga sare Soomaaliland 2016 wuxuu ku daray gobol geera ka sheekeynaya oo meeris ka mid yahay bahdan dhaqanin sida boonta waa la iska buriyaa yani dadkan geela lahayn sida midgaha loo yiriyaa ereyga boon macnihiisa haddii aynu nimaadno haddii la yidhaahdo hebel habartiis boon waaye way caddahay waxa loo jeedo taasina way ku caddahay isagaa buuggaa qoray gabaygaana ku daray waana caddayn lahaa eedda labaad waxa weye waxaan dhaliilay heerka aqooneed la taliyaha oo waxaan idhi baarlamaanka xiisad geer ah loo dhigi maayo wuxuu u baahan yahay higaada laga soco buugtu maxamed qorayna kunka fooq qalada baa laga helayaa talabaadna waxa weeye erey bixin marka sharci la soo turjumayo in ereyga af ingiriisiga hadda Soomaali loo bedelo kara ama Carabiga oo erey bixinta maxamed imaka hadii lagu yiraahdo waxa af ingiriisi ku tilaahdaa waxa laga magacaabay la taliyaha afka dhaqanka golaha wakiilada ma hanin oran karay marka maadaama higaadna ka caawineen wax kalena ka caawineen in gulno loo qorayo ayuun bay aniga ilahay eedda saddexaad qaar baa yidhi maxamed wuxuu imtixaanka u dhacay waalidkii baa geeriyooday ama hooyadii xilligaa imtixaanadoo waxaan ku hooyadii waxay geeriyootay 4 bilood kahor intaan imtixaanka laga qaaday anigu sanadkii aabbahay geeriyooday dadaal badan baaba sameeyey kooxii waan ka baxoo budkii waan iska dhigay waxaan ogaaday cid iga dambaysa oo maanta haddii aan fal galo taageeraysa inaan jirin dee waxaa jooga dadkii la jaarka ahaa ee maxamed isagoo aabbihii gacan u qaadaya arkay weliba inaan ku sii fogaado ma jecli saddexdaa eedood ee ahaa inaan dhaliilay aqoontiisa iyo inuu manhaj ku daray gabay faquuqay beelaha gabay iyo taas ah dee in uu waalidkii aanu waalid baari ahayn abwaan waxaad moodaa ninka inaad eedii dhan cid kale wax ma haysatid miya xadhigayga waxay isu kaashaday dee maxkamaddii gobolka oo golihii garsoorka ah waa kow haddii aanu garsoorku warqadan soo qorin dee awooddan moo heleen weliba garsoorku qof hadlay bay warqad soo jareen ka labaad dee wuxuu xidhnaa shaarkii la taliyaha afka iyo dhaqanka ee golaha wakiilada oo wuxuu ku tagrifalay awooddii mas-uul la magacaabay baane buu lahaa waa kan xildhibaanadii xitaa diidayba ta saddexaad waxaa qayb ka hadda ciidanka booliska oo iguna xukuumadda markaa saddexdii goloba way u dhammaayeen aniga awood dowladeed ayaa laygu xidhay ee intuunan dee kalarkay soo qabtay qolimuu geynin imana geyn karo weli waxaan kugu darayaa hadda waxaan joogaa caasimadda dowladda goobta ah ee puntland oon hawlo u yimi magacaygiiyan anisi hargeysaawi baa la yidhaahdaa dacwadii eed layga gudbiyey ma yihiin in uga maqnaanaya caasimadda kiiskaasi ama anigoo maqan buu socon ama markaan ku laabto waa layla sugi hal caad baa sidii hargeysa aan uga soo baxay aanan uga degaya ma yihiin in meelo kale usii socdo ama dee mustaafiriisa ama maqnaanaya taana waan kuu caddaynaya imaka